الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxay khudbadeena ku saabsan tahay ilaalinta qalbiga iyo islaaxintiisa ama hagaajintiisa iyo ka warhayntiisa sidoo caafimaad qabi lahaa. qalbigu inaynu ka warhayno muhiimadiisu leeyahay 122 aayadood ayaa Rabbi subxaanahu wa ta'ala qalbiga uu ku sheegay Quraanka dhexdiisa, iyadoo lafdul fuaad ilaa 16 aayadood uu ku sheegay. macnaheedu markaa waxa weeye tirada aayaadka intaa la eegay meesha ay danaysay naga waanisay ma ilaawi karno, waa inaan u feejignaanaa. xubnaha kale qalbigu wuxuu dheer yahay waa manaatu takliif, waa meesha sababta waa xilka ina saaran. oo haddii garaadku inaga lumo ilaa caqligu qalbigu ka yimaadaaye qofka waxba lama weydiiyo, xilna ma saara, mid adduunyo iyo mid aakhira midnaba kala duwaasho. waxa saddexaad oo muhiimad siinaya inaynu ka hadalno waa maxallu nadar illaah, halkuu ilaahay inaga eegayo wey subxaana wa tacaala. dee meel ilaahay uu kaa eegayo maxaad u malaynaysa? inaad iska hagaajiso oo nadaafadiisa aad ku dadaasha aad bay muhiim u tahay. midda shanaad ee muhiimadda siinaysaa waxa weeye islaaxu lquluub asaasu lqubuul, in camalkeenna la aqbalo waxa asal u ah in qalbigeennu hagaagsan yahay ama qiyaamahaba aynu nabadgallaba. qalbiga sidaynu ogsoonnahay dadka ka fikira noloshan adduunyada caafimaad qabkiisa maadigaa ka fikira aad bay u daneeyaan. laba nololood buu leeyahay qalbigu, mid waa tan maadiga inoo muuqanaysa dhakhaatiirtu ku takhasuseen la daaweeyo ama la qalo. midna waa nolosha macnawiga ah ee digtoorkeeda iyo dabiibkeeda qur-aanka uu yahay, farmasiga dawada laga qaataana waxyiga uu yahay. labadaa nololood buu leeyahay. tan hore dadkan adduunyada ku nool ila waa indhowgarade, aad bay ugu dadaalaan. daraasadaha iyo baaritaanka muhiimadda uu leeyahay laga qoray aad bay u badan tahay. markaa waxaad arkaysaa inay taasun ku dadaalayaan, maadaama ilaahay uhi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya. muuqaalka adduunyadun bay ku dadaalaan buu ilaahay yidhi waxa u muuqda dadka aan ilaahay ka amar qaadan subxaana wa tacaala. nolosha maadiga ah ee muuqanaysa laftigeeda ayaa ina siiyey, ilaahay baa ina siiyey subxaana wa tacaala, oo qalbiga iyo qiimaha uu leeyahy inoogu deeqay. wax yar haddaynu ku horeyno taa oo ta aynu aada ula orodno ah, haddii maanta qofka la idhaa xididadii qalbiga qaar baa ku xidhan, dee waxaa laga yaabaa guryihiisa intuu xaraasho inu meelaha ula cararo uu idhahdo aan soo furo ama aan soo qalo. noloshan u danaynaya. waxay yidhaahdeen innahu waa min acjabi maa khalaqa allah. wadnuhu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay u abuuray kuwa ugu cajiibsan. waxa uu bamgaraynayaa shidaalka jidhkeennu uu ku nool yahay, iyadoo uu ku shubayo xididdo dherarkeedu uu leegyahay 150 kilomitr. waxaad filaysa maaha. yaa sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala xididada uu dhiiga ku bamgaraynayo wadnuhu. mid inoo muuqda iyo mid qarsoonba haddii la isku wada daba xidho masaafadda intaa leeg bay gaadhayaan. insaankaaga yar iska socda dhaqaaqiisa wuxuu bilaabmaa wiigga labaadee ilmuhu markuu hooyada ku jirada, waana halka noloshu ay ku dambayso. noloshu uma dambayso maskaxda iyo meesha la idhaa garaadkaa ku jira, laakiin waxay ku dambaysaa wadnaha kuna horeysaa. sidaa daraaddeed baa lagu odhanayaa mararka qaarkood qofkani maata dimaaqiyan, maskax ahaan wuu u dhintay laakiin wadnihiisu waa shaqaynaya. لا يغفل ولا ينسى ولا يقعد
hawshiisa ma hilmaamo mana ilaawo kamana fadhiisto yacmalu duuna raaxatin walaa siyaana wuxuu inoo shaqaynayaa iyadoo ribaydhinna loo samayna ma dibu habayn mar qurhana intaynu noolla aanu nasanayn yanqabidu wayanbasitu 80 maratan fi daqiiqa daqiiqadda keliya 80 jeer ayuu garaacayaa haddii culays dheeraadii uu fuulana 180 wuxuu bamgaraynayaa 24 saacadood dhiig u dhigma 8,000 litir ama 40 foosto 24 saacadood waxaanad islahayn mucjiso intaa leeg baa meesha ku jirta miskiinkaaga yar iska soconaya booyad biyo ah waxaan leeyahay booyad wax u dhigma ayuu inoo bamgaraynayaa si uu hawshiisa u wato jihaaska la yidhaahdo casabiga ama neerfayaasha mustaqil buu ka yahay waa kaa nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam jidhka waxaa ku jira waslad hadday hagaagto jidhku wuu hagaagayaa waa noloshii muuqatay iyo tii qarsooneyd labadaba alaa wahiya alqalbu buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam nin shaacira baa wuxuu uhi daqaatu qalbi lmar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqu wa hawaani farfac linafsika qabla mawtika dikraha fadikru lilinsaani cumrun haani garaacaa wadnuhu garaacayo waxa uu kuu sheegayaa noloshu daqiiqado iyo ilbidhiqsiyeynayt haddaba naftaada ku dadaal si ay magaca wanaagsan u yeelan lahayd intaana dhimanin ammaanta wanaagsan iyo taariikhda fiicani waa cimri labaad oo qofku uu leeyahay qalbigu waxa weeye markasu tacaqul sida maanta dadka qaarkood ay yidhaahdaan waa maskaxdu isagay xokayn u tahay laakiin meesha wax laga kasaa waa qalbiga qur-aankuna fikirka iyo fahamka iyo caqliga maskaxda kuma sheega wuxuu ku sheegaa qalbiga sidaa daraaddeed baa akhiiran daraasadaha la sameeyey waxaa la ogaaday qofka qalbiga laga bedelo ama wadnaha isbeddel baa ku dhaca xagga caatifadiisa iyo xusuustiisa iyo abateedkiisa intaba marka waxaa la ogaaday inuu jidhkana u dirayo rasaa'il iyo fariimo uu wax ugu sheegayo idan arrintaasi waxay sheegaysaa waxna waa laga gartay caqliyadda qur-aanku uu sheegay iyo garashada ah waxna way hadhan yihiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay marka qalbiga noocaas inuu inoo caafimaad qabaa inay muhiimto yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi caafimaad qaba inaynu ilaahay la hor nimaadnaa aad bay muhiim u tahay qalbigu inuu nool yahay waxyaabaha calaamado u ah oo noloshiisu ay jirto waxyaabaha calaamadda u aha sheegaya waxaa ka mid a inuu dareen u leeyahay dikriga ilaahay iyo dawadiisoo qur-aanka ah inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana dadka mu'miniinta dhabtahay waxa weeye kuwa marka ilaahay la xusuusiyo ama aayaadkaba lagu dul akhriyo qalbigooda cabsada buu ilaahay wajilat quluubuhum marka qalbigii noloshiisu ka turjumayaa markuu qur-aanka la jaan qaadayo u jawaabayo waxaa ka mid a inuu jecel yahay waxa wanaagsan iyo camalka fiican waxaa xunna qofku uu necab yahay islaamku u diiday waxababa ilaykum اliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan ulaa'ika hum اraashiduun calaamadihiisa inuu nool yuu qoyan yahay sheegaya waxaa ka mid a inuu yahay rafiiqan raxiima mid dadka u dabacsan oo u naxaya oo u turhaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi wa ahlu ljannati halaaa dadka ahlujannaha ee quluubta wanaagsan waa saddex duu sulطaanin muqsid mutasadiq muwafaq warajulu raxiimu raqiiqu lqalbi likulli dii qurba wa muslim wacafiifun mutacafifun duu ciyaal xadiidkaa saxiixa muslim ku sugan qofka ahlujannaha waa qofka qalbigiisu uu dabacsan yahay qof kasta oo qaraabo ah iyo qof kastoo muslima u dabacsan yahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qalbigu waxa uu leeyahay waxyaabo dabciya oo diinteennu inoo tilmaantay si aanu kaaga qallafin oo aanu kaaga fadhiisanin ilaa meeshii mishiinku ugu jiraa jidhka hadduu gaadhiga mishiinku cawarmo ama istaago socod waa la istaagi
waxyaabaha dabciye quraan waxa kamida saayn horaba u soo xusnay quraanka inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid aw alqa as-sam'a qofka dhikriga ilaahay aad u dhageysanaya الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله شركي قلبي جيب قرآن كذا مع السنة يعني درامية وحكم إذا إنه قفكو أنو يستجترين عالم كذنبه أي نصعناه وجيري ده حسوسته النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هادم اللذات dhadhankan adduunyada waxa idin dhaafinaya geerida xusa in badan marka kala dad xusuusantay geerida oo aad ka fikirayso aad ka warwarayso qalbigu inuu nool yahay bay sheegaysaa iyo waxyaabaha nooleyn kara way waxa kamid ah jinaasada inuu qofku raaco waana xaq dadka muslimiinta ay isku leeyihiin oo uu ku cibro qaato kuwan toobo waxa afraad oo kamid ah qubuurta inuu qofku soo siyaarto oo ziyaaratul qubur aanu ilaawin isaga oo xiisadihiisa ama waqtiyadiisa ama shaqooyinkiisa ku darsanaya oo wax inagu adag nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alaakhirah waxaan barigii hore idin diiday xabaalaha booqashadooda imaka soo booqda aakhire idin xusuusinaysa qubuurta booqanaysa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ma dhacdaa mid inaga mid isagoon cidna aasayn hawl la lahayn intuu gaariga siraatay inuu حوالها وقصدي وكسور وكسور عبرقات وسود عياجاجو حشيجي سائن قلبي وسيه مرة دينا هولها وتاجنين نبي يقول إنه ينوت المامة صلى الله عليه وسلم وحكم إذا ذكر إلهي الله بديات ده كعام سن قرآنك نعرب كاج وحسك إلهي يا أمانتيس يا تصبيح ديس يا توحيد كيس عرب كاج وردي أذو الله هذا صار نقنا يا هبين كيا معلن تيبا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلبي ذكر إلهي أيها إلهي يحس مركا قلبي قود وحكو حسلات ذكر إلهي وكو حسلات محكو بحسلها دانت حسين نبدا وحيابها قلبي إنه وكو قوي كريا وحكم إذا إنا ينصاب وقندت كبوكا مساكين تي فقراء كو بلايسن أما اللي بعتضوا أي كل عداية الله يرهض أصحاب الاحتياجات الخاصة أما باهيها قارك عليه دad kainaad soo eegto adiga kula mid aha laakiin noloshii ka dhacay ama dib weyn uu ku habsaday ilaahay baa nabiga la hadlay sallallahu alayhi wasallam waxa uu wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha liman adoon ma iyo masaakiin iyo fuqara ahaayo muuminiin ahaayo nabigu ka dhawaan jiray ay gaaladu yiraahdeen anagu wada fadhiisanay oo aan kugu soo dhawaanay kuwa iskaga soo aka ilaahayna wuu diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaga la joogo naftaada ku xijibaalay waba laga yaabaa dadka madaxda ama maalqabeenka ama mudanka isku tiriya inaanay kuwa ka ag dhawaanin ama in badan qofku ka durko wuxuu siiyay iyo qaxwo u dhiiba mooyaane waxyaabaha uu qalbigu ku dabci karay kamid tahay inaad cusbataalada iyo meelaha dadka waalan ku xaraysan yihiin agoomaha iyo kuwa naafada ay inaad kuwa bukay inaad maaragtay waqti siiso waxa kamid oo qalbigeena dabcin kara sharcigeenu inayna barayaa inaynu ku cibro qaadano dadka ilaahay u halaagay kuwa kibray iyagu kuwa faaqay kibray casharadu ilaahay u dhigay iyo cibarka ku jira iyo balaayooyinka ku habsaday inaynu iyagana eegno فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وماذا ميل دقنان ترى ضلكي بخرابة داره الدمين وعيالشي الدمين وضدكي نماشا كبحي كوا دولكودا ما يسو مرانا ku cibra qaataan baa ilaahay indhahoodana way iska jiraan laakiin indhihii qalbiga ka baabaay baa ilaahay marka qalbiga inuu arinta ku cibra qaadan karo ku qoy karo quraanku ina baraya wadiga arkay caasiir mudamira gaalada hadiya jeer waxa ku aafaadka dabiiciga iyo balaayada ku dhacda way ka badan tahay taynaga inagu dhacda oo waxa hadiya jeer ku habsanaya iyo badaha iyo burkaanayaasha iyo duufaanada iyo wadiga arkaya waxa lagu cibra qaato way
qalbiga waxyaabaha qooyo waxaa ka mid a ee inoo dabcin kara inoo noolayn kara aklulxalaal aklulxalaal wamaa adraaka aklulxalaal xalaasha cunideeda hadduu qofku xaaraanta iska cuno qalbigiisu wuu qallafay mana qoyana khayrna laga sugi maayo cidna u nixi maayo marka cunitaanka xalaashu wax weyn weeye waxaa ka mid a inaynu sunnayaasha badino cibaado waliba sunno ku ladhan oo ku lifaaqan bay leedahay salaada soonka dikriga shay waliba waxaa ka mid a inaynu ducada aada u badino aynu ilaahay barino subxaanahu watacaala aana dadun ka sugin inay kuu duceeyaana biyo gacmahaagaa lagaga dhargay adigu aad ilaahay barido luqadaad kaga bogan karaysa aad ilaahay ku barido subxaanahu watacaala waxaasoo dhami tobaneeyadaa shay waxay ka mid yihiin qalbiga waxyaabaha xayaatada iyo nolosha iyo debaca u keeni kara marka qalbiga intaasoo dhan qur-aanku uu ka hadlay noloshiisa maadigaa la eegaya taynu doonaynaa waa tan macnawiga qalbi kuu nool oo ilaahay uu eegayo oo uu raalli ka noqday oo uu kugu naxariisanayo oo camalkaaga lagu aqbalo arrintaynu u baahan nahay waa taa idan islaaxu lquluub asaasu lqabuul aqbalka camalku halkaasuu ku xidhan sidaa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jidhka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhka camalkiisii oo dhan wuu hagaagaya isagiina wuu hagaagaya hadday fasaadana jidhkii kalena wuu kharib waxyaabahaasaa noolayn kara calaamadihiisana kuwaasaa ka mid a idan aynu dib ugu noqonno meesha ugu muhiimsan jidhka inaynu ku dadaalo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaabah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسننا من الكذب يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة